raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalkeena soo dhawaada fiidiyoga waxaan rabnaa inaan kusoo bandhigno shirkadda intelligence prime capital aan ku jirnay muddo 4 bilood ah iyo maxaan kala kulanay run ahaantii waxaan kala kulanay positive aad iyo aad u fiican natiijo wanaagsan aan kala kulanay muddadii 4 bilood ahayd waxaan ku biiray bishii December aan ku biiray bishaan hadda saddexaad markay dhamaatana 4 bilood ayay ii dhamaan doontaa insha Allah tacaala maxaan kala kulmay marka shirkaddan markii aan bilaabayay waxaan ku bilaabay $109 dadkii ila socday ka warqabo fiidiyoyaal badanna waa kasoo sameeyay qaabka shirkaddan loogu biiro sida account looga samaysto sida lacag loogu shubto iyo waxa dhan iyo waxyaabaha la iskaga baahan yahay okay 109 aan ku bilaabay haddana akoonkayga MT4 ka saa ka arkaysaa midka hoose ee cagaarka ah $101 iyo 68 senti ayaa ku jirta MT4 kayga oo uu ii trade gareynayaa USDT walletka lacagtan ku jirtana waxay iskugu jirtaa lacagta isbuucan uu shaqeeyay iyo maaragtay bonuses kale oo shirkadda ay bixisay ayay iskugu jiraan isbuucan marka run ahaantii natiijo fiican aan kala kulmay isbuuc walbana sidaas ayaan oola baxaa marka muddadaas 4 bilood waxaan kala kulmay positive aad iyo aad u fiican run ahaantii waa shirkad lagu kalsoonaan karo haddii aad fiiriso subscription-keeda waxay u kala baxaan 3 qaybood shirkaddani waa shirkad broker ah oo ka shaqeysa suuqa forex-ka waxay ku taalaa dalka Canada waxay bixisaa barnaamij cajiib ah oo la yiraahdo robot adiga ku shaqeynayo ku trade gareynayo forex waa naqaanaa broker waa naqaanaa lacag lagu shubtaa kadibna suuq ayaa la galaa maalmaha suuqa forex wuxuu shaqeeyaa isniinta ilaa jimcaha shantaas maalmood sabtida iyo axadda suuqa ma shaqeeyo sida arkaysaan hadda maanta iyo bariba wax shaqo ah oo faa'iido ah uu noo sameynaa robotka ma jirto marka shirkaddani maxay shirkadaha kala dheer tahay shirkaddani waxay la imaatay barnaamij ay dhowr sano soo tijaabinaysay oo robot ah robotkaas oo 3 nooc u kala baxaa waxaa la kala yiraahdaa brilliant bot iyo genius bot iyo smart bot smart bot waa midka ugu raqiisan $19 uu joogaa laakiin saa arkaysaan lacagta ku jirta iyo dad ku jiraba aad ay u yaryihiin 998 qofooda ku jirto faa'iidadu ku siinaana waa yartahay 15% ku siinaa midka kale oo ku xigo oo smart bot-ka asagana $39 iyo 90 senti waaye waxaa ku jirta 2306 qofooda ku jirto 30% ku siinaa asagana lacagta ku jirta aad ay u yartahay saa arkaysaanba genius bot-ka oo anigaba aan ku jiro dadka intooda badan ay ku jiraan waxaa ku jira genius bot-ka waqtigan aan hadda fiidiyoga duubaa daqiiqad walba dad baa kusoo biiro 256,000 oo qofood iyo 338 daqiiqada ka hor haddaan fiirin lahayn intaan waa ay ka yareed macnaheedu waxay ka dhigan tahay sikin walba iyo daqiiqad walba dad cusub ayaa kusoo biiraya shirkaddani maxaa yeelay waa shirkad aad iyo aad loogu kalsoonaan karo muddadii ay shaqeynaysa 1 sano inay shirkaddan shaqeysa 3 bilood ayaa uga dhiman waxay shaqo bilowday 2021 bishii 6aad haddana waxaan ku jirnaa bishii 3aad ee 2022 ayaan dhexda uga jirnaa okay robotkan markaa genius bot-ka ah waxaa ku jirto lacag kor u dhaafayso 400 milyan oo dollar sidaa meesha ka arkaysaan 402 milyan iyo 124,674 dollar iyo dhibic 1 senti ayuu hadda trade gareynayaa macnaha ku jirta lacagta dadka iska leeyihiin oo lagu trade gareynaa ay tahay okay daqiiqad walbana haddii aad soo booqato waxaad arkaysaa lacagtii oo intii ka korodhay okay faa'iido wuxuu ku siinaa 45% ah run ahaantii 4 biloodan ku jiray faa'iidadiis marmaraha iska yaraata isbuuc laakiin wax khasaare oo kala kulmaysa ma jirto waxaan soo arkay shirkado badan oo saas oo kaleento FXTM aan soo arkay oo copy trade iyo waxaas isticmaasho oo dad kale trade-kooda aad copy gareynayso laakiin barnaamij noocan oo kaleento shirkad leh oo haddana trust ah oo wixii ay ballan qaaday sida uga soo baxayso waa ay yartahay marka shirkaddani 100% waa lagu kalsoonaan karaa dad badanaa shaa'icaad been ka bixinayay wax aynan hubin ayay sheegayaan sideedaba adduunka waxaa wax la weydiiyaa qofkii wax tijaabo dhab maaragtay ardul waaqica soo maro go-aankana qof walba asaga go-aankiisa iska leh ma aha qof kalento go-aankiisa inaad ku shaqayso waxaa waayo adiga maaragtay baaritaankaaga inaad samayso oo si fiican u baarta shirkadda kadibna aad maaragtay decision qaadatid waaye sida anigaba decision kaasoo kalenta aan u qaatay
okay. Waana dareemi kartaa dadkan saan u badan, dhammaantoodii ma aha dad kulligood maaragtay dhagaha iyo indhaha ka xiran. maanta 2022 aan joognaa, tiknolojiyadana heerka laga marayo waa ogtahay. googlaa jiro, wax walba macluumaadka daqiiqad ayaa lagu ogaan karaa. shirkad tuug ahna maaragtay intani ma aysan sii shaqayseen. marka waad dareemi kartaa inay tahay shirkad dukumiintiyada ayna tustoo dhan iyo cadeymaheeda ay yihiin kulli kuwa sax ah oo lagu kalsoonaan karo. okay, robotka marka waxaad ka bixinaysaa hal mar $99.90 ayaad ka bixinaysaa. mar dambeeta lacag dambe kuma shubeysid, robotkaas adaa lahaanaysid, asaa kuu shaqaynayo. meesha adiga aad trade ka samayn lahayd asaga ayaa kuu trade garaynayo. kadibna lacag ayaad maal gashanaysaa, ugu yar tahay $100. waadna ka badsan kartaa haddaa rabto. marka u hore 100 haddaa rabto ku bilaabi kartaa, ugu yaraan waa 100 iyo wixii ka badan. haddaa rabto 1000 ku bilaabi kartaa, haddaa haysato oo tabartaada haddaa rabto ka badsan kartaa. marka faa'iidadaasna qaabkaasaa ku xisaabtamaysaa. shirkadana 20% faa'iido ayay leedahay iyadana. marka qaabkaas waaye. haddii aan intuso MT4-kayga, MT4-kayga waa kana. waa kuwana tradyadii lacagtii balancii ku jirtay waa kana. saa arkaysaan bishii saddex toddobadeedii maalin walba 3 ayuu galaa. 8 bisha 3 kuluu galay, 9 bisha 3 uu galay, 10 bisha waa kana, 11 bisha, 12 bishana lacagta kugu jirto oo ku shaqeey isbuucaas wuxuu kugu soo xawilayaa MT4-ka. adigana balancigaaga ayaa diyaar u ahaanaysaa inaad la baxdo. sida aniga hadda lacagta igu jirto walletkayga haddaa intuso aan haddaba oo la bixi karo waqti xaadirkan aan joogno. lacagtan qaybtan hoose, midaan waxaa waaye waa midda MT4 ku jirayso. midaanna waa midda asagaa soo xawilay. 5 maalmood wuxuu shaqeeyo, wuxuu kugu soo shubaa walletkaas buluuga ah oo ay ku qoran tahay USDT walletka ah. kadibna maalinta sabtida wixii ka dambe habeenkii jimcaha ayuu soo xawilaa. subaxa sabtida markaas waxaa arkaysaa lacagta iyadoo walletkaas kugu jirto. kadibna toos ayaad waxaa ugu shubanaysaa account-kaaga Binance-ga oo aad marka hore aad isku diiwaan gelinaysaa. walletka aad ku shubanaysaa lacagta. haddii kale Trust Wallet oo la bixi kartaa. haddii kale adi lacagta waa lacag Tether la yiraahdaa. USDT waa lacag cryptocurrency ah oo maaragtay stable coin ah oo aan isbedelaynin dollarka intay qiimaheeda tahay. marka lacagtaas waxaana ka heli kartaa exchange-yada cryptocurrency-ga sida Binance-ga, KuCoin-ka, iyo shirkadaha dhammaan way fara badan yihiin. 400 exchange jira suuqa dhammaantood ka heli kartaa. sidoo kale walletka Trust Wallet-ka ayadana sidoo kale waa ka heli kartaa. marka sidaas ayaad ula bixi kartaa. haddaba shirkadani sidee ugu beeri kartaa? way sahlan tahay. waxaan ka sameynay fiidiyoyaal badan aan ka sameynay oo janaalkeena ku jiro YouTube-ka. fiidiyowgan oo kaleento waxaan kusoo bandhignay sida maaragtay sida looga samaysto account cusub, looga samaysto la isku diiwaan geliyo, qaabka MT4-ka loo soo dejiyo, sida loogu rakibo account-kaaga. sidoo kale fiidiyowgan waxaan ku sharxayaa waqtigiisa xoogaa 32 daqiiqo. waxaan ku sharxayaa tafaasiil dheer aan ka bixinaa. waxaan ku sharxayaa sida maaragtay shirkadani maaragtay dukumiintiyada ay haysato, meelaha ay ka diiwaan gelisan tahay, shahaadooyinka ay haysato, website-yada wax dhan ayaan wada gelaynaa. kadibna waxaan ku tusayaa iyo qaabka la isku waxaynaa. sidoo kale fiidiyoyaal fara badan waxaa jiro baalkii useful ah oo aan soo dhigay janaalkayga. inta badan aniga waxaan jeclahay wixii aniga maaragtay faa'iido ii leh dadkana bulshada faa'iido in aan bulbeeto YouTube-kayga aan soo dhigo dadkana aan u faa'iideeyo. marka sidoo kale account Binance sida loogu samaysto. haddana Binance lahayn passport u baahan tahay, passport qaabka loogu samaysto ayaan fiidiyowgan asana ku sharxayaa. marka way sahlan tahay steebyada sida IB Capital ugu biirayso. linkiga inaad ku biirto IB Capital wuxuu ku jiraa fiidiyowgan qaybtiisa description-ka ayaad ka helaysaa. sida hadda fiidiyowgan oo kaleento haddaad daarno fiidiyowga magaciisa ku dul dhufanaysaa. kadibna waa arkaysaa linkiga la iska diiwaan gelinayo ee IB Capital waa kaasa. linkigaas ayaad ku dhufanaysaa.
kadibna toos wuxuu ku geynaa qaybta isdiiwaangelinta. waa isdiiwaangelinaysaa kadibna lacagna qaabka lacagaha loogu shubta iyadana sidoo kale video ayaan ka sameynay. haddaad Soomaaliya joogto adoo isticmaalaya EVC-gaaga ama e-sahalkaaga ama sidoo kaleeto ayaad ku shuban kartaa account-kaaga Binance. videoga u dambeeyay oo maaragtay qaab fudud oo loogu shuban karo account kaas ayaa daawan kartaa. marka wax aan ka tagnay malaha. sidoo kaleeto haddii aad u baahato caawinaad dheeri ah waxaan waqti walba waa ku helanahay. numberkayga waxaan kugu reebi doonaa videogan hadda qaybtiisa description-ka. WhatsApp-kayga ay la soo xiriiri kartaa haddaa u baahato inaad shirkadani ku biirto iyo qaabka ugu biirayso wax walbeeto waa kaa caawin doona insha allahu tacaala. intaasaan videogeena kusoo waxaynaynaa sidaas ay la soo xiriiri doontaa insha allah. inaan waqtiga videoga nagu sii dheeraado ma rabno. intaasaan kusoo gabagabeynayna insha allahu tacaala. sidaas ayaadna maaragtay tajribadii aan oo kala kulmay IB Capital intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. wixii su-aale iyo maaragtay faahfaahin dheer ayna igala soo xiriir numberkayga WhatsApp-ka. intaasaan video kusoo gabagabeynaynaa. intaa marka la kulmi doono haddaad channelkeena ku cusub tahay subscribe noo saar, sidoo kale videogan like saar si dad badan ay u gaaraan. aad iyo aad u mahadsantahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.